halkani waa Rio Socdaal daawada mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow channelkeena like-na inoo saar subscribe-kana inoo saar share-na inoogu dhufo gambaleelkana riix saa markasta ula socotaan videogan soo gelino mahadsanidin Rio Socdaal السلام عليكم وتعالى وبركاته مانتا برنامج كيني هوري قيبتي سكواد واردميني قيبتي لبعض يا نسي كلينا ومحمد كساب سنة يا أربيتر نمدي سينو لشي سينو وصو شيقني مركا محمد أنا وحدنا كسي بلعبينا برنامج كيني قيبتي سلامات كسو دو عادي هذا ما صار أوكي محمد شكديني وحي نو مريسي أديقا oo ciyaartii Swiss-ka qabatay ayay noo mareysay ka bacdi intaasatan ka sii wadano ciyaartii Swiss-ka waa ku guuleysatay waxaad noo sheegtay 3-3 ina casaan ka siisay ciyaartiina si fair ah aad u dhameysay ka bacdi noloshii noo sii wadmarka waxaa lii ogolaaday marka inaan la shaqeeyo xiriirka oo magaalada oo kubadda cagta inaan la shaqeeyo kala bixiyo resultiga wadankee Switzerland mar walba Switzerland dadku inay naga haraan ma rabno Switzerland magaalada Geneva waa gartay inaan la shaqeyso inaan la shaqeeyo xiriirka oo aan maamulo ciyaaraha waxa dhaco resultigooda si newspaper loogu gudbiyo waa gartay oo laakiin free ah lacag aad ku qaadanaynin ma fahamtay oo macnaha maamulka qabatid weekendiga maamulkaas marka warqadaha la kala saarayo resultiga ciyaaraha waxay ku dhamaadaan wax kasto wixii jaalle la sii waxa soo dhan ganaax waa lacag qarasha dadka soo galay okay qofka yalow la siiyo dawladdu mar walba ganaax bay ka qaadanaysaa waxa ugu yar 2500 2,500 naadigaas oo pound ama se franc Swiss okay marka qof walba oo qalad sameeyay waxa la ganaaxayaa 2,500 hadda ka badan tahay hadda way ka sii badnaanaysaa guduudkana guduudka 5 way marka ma shakhsiga iska bixinaya mise isaga kalaabka ka bixinaya kalaabkana dabcan lacagtiisa laga jaraya because haddii kalaabka uu lacagaha dhan wada bixiyo nin walba qaladku rabo iska galaya si culays loo saaro ciyaartooydana waaye maxamed wuxuu noo sheegayaa shaqadiisa inay sii ballaaratay uu mar walbana footballka jacaylka uu jecel yahay refereenimada inuu hataa sometimes free uu ugu shaqeeyo shaqadiisa fuulkuu soo dhamaysta tanna part time bay wadahayd soo maaha maxamed waaye maxamed xaafadii ayaa lagu magacaabay in aad u shaqaysid gobolka Geneva aad u kala saarsaatid SCGF waa gartay ka bacdi meeshaasaa shaqadaada maamulka anoo shaqaynayo oo isbitaal qayb dhan ka shaqeeyo ayaa intan waxaa sabdiga hadda free aan xafiiska waxaan fadhiyaa oo correspondency-ga oo ciyaaraha dhacaya waxa dhan kulli raadiyaasha ay sheegayaan TV-ga waxaasoo dhan inaa resultiga qoro si meediyada loogu gudbiyo ciyaarihii waxay ku dhammaadeen gobolka oo dhan waa gartay marka shaqadaasi ilaa muddo waad waday ilaa 7 sano ma dalacday marka maya waxa waaye dadka soo baxaya soo saaraysaa marka adiga heerkaada gaartid dad badanaa soo saaraysaa oo si ay shaqada kala wareegaan ayagana professional u noqdaan dadku adiga dada ka sareeyo adigana iyaga ka sareeyo tiraan markuu xidhan baadiriin qof adiga ku wadaayo oo ku hagaayo ilaa heer ay ka gaartid hada waxa soo qada Soomaaliya waxa jira dad oo commissioner noqdeen marka hore referee waxa kamid ah nin saaxiibkay walaalkaygu inuu isku xafideen Maxamed Mukhtaar wuxuu joogaa Sweden commissioner oo noqday ilaa commissioner oo ka waa gartay oo Sweden uu ka gaaray Soomaaliya ma Soomaaliya ka gaaray waaye maxamed shaqadaadii sidaas ayay ahayd marka baajkii iyo labiskaaga iyo dharkaagana way ku siiyeen isla markaa qaadanaysaa marka ciyaaro kale badan ma qabato ciyaaro badan qabtaa habeenii maalin warqada ku imaana laakiin gobolka ma ka qaban karin gobolka waa la iga yaqaanaa waa inaan banaanka aadaa marka sharcigaasi gobolka ninka magaalo waxa lagu tiidaya inaad u kala hiirso dadka ku yaqaano ciyaar hebel qofkaas qabanaya laakiin meel laga aqoonin qaybta Jarmalka oo kala aada ama qaybta waxaan aadayaa oo Talyaaniga marka waxa laga bixinaa transportkii hotelkii lacagtii lagu siinayo wixii oo dhan lacagtana waxa ku siinayo naadiga ku siinayo labada naadi divide by 2 waa la qaybsanayo way ayaga kala qaybsanayo
hal envelope lagu soo gelinayaa by cash Waa gartay. canshuurna lagama bixiyo waa gartay maxamed shaqadaadii marka arbiter cayaaro badan baa qabatay ciyaar badan cayaartaadii kugu xiisaha badnayd Swiss-ka iyo waxay ahayd tii aad noo sheegay kuwa kale ma jiraan maya waxaan qabtay ciyaarta ugu fiicneed waxay ahayd magaalo oo Freiburg la dhahayo Freiburg oo dhinaca xuduudka Jarmalka maya waxaa waa magaalada looga hadlo Faransiiska iyo Jarmalka iyo group yar oo la yiraahdo Lugano oo qaybta Talyaaniga ah marka habeenkii markii oo ciyaarta ay bilaawanaysay garoonka waxaan ka helay meel yar oo tubo ku jirto marka garoonka marka hore waa inaa baartaa waxa dhan aad soo fiirisaa dhinac kasta marka waa diiday ciyaarta lama dhigayaan ku dhahay ama geedda aan la jaro nin general ayuu wuxuu dhahay ciyaarta in la ciyaaro waa ma la ciyaarayaan ku dhahay ma ogtay ugu dhahday qaxooti inaad tahay waayahay halkaa ii jooji meeshu Jarmalkii xuduudkii bay ahayd mase dhinaca waxay maya waxa waaye Freiburg waa magaalo oo qaybta Jarmalka afka ku hadasho laakiin waa Swiss-ku ay qaybta Faransiis ku hadasho meesha iska galaan waa gartay Freiburg waxaan u soo noqonaynaa marka tubadan hala jaraatay hala jaro mar walba maxamed oo go'aankaaga aad buu adag yahay waayo wax nina soo degtay general ah wuxuu dhahay ma diidi kartid ciyaartana shacabka oo soo galay 10 kun ku jirta garoonka qasab in micnaa fahmin la ciyaaro waqtoo dhacday qaxootiina taa oo wadanka taa sharci ku leheen aniga heerkan waxa ku soo gaartaan bal yaabana haye marka waxaan ku dhahay okay problem ma lahan adiga askariya tahay aniga laakiin aan care aniga adiga ku shaqeey lacag ma isiisi sharciga aan lahayn adiga ku taala aniga qaxooti waa laakiin qaxooti oo shaqeysta oo contribute bixiyo oo taxation bixiyo waa gartay mis adiga ciyaarta dib u dhacday waxay dabdamisa yimid meeshii la jaray waa la tolay waa la buufiyey coos yar lagu kabay kabacdi ciyaartii la bilaabay markaas awooddaada oo abaalmarin xiriirkiisii markay dadka xiriirka koray fadhiyaan muranka nin dharcada ay ag joogo oo ay wala qiimeynaya asaga u sheegayo leeyahay saas u sagnibinooya afeedeen asku dhamaadaan labadooda okay yalla gobolka ninka haysto waayo askarta dhinac xukumi faraaq qaaday anaga asagan ku kalsoonahay أسان دفاع أنا قاعد دفاعي حدودي لكن بالنكاس هيرك أوجاتيسية إلى جلع نقطة تدي إنكو عنكها اللي الشرعي بعد مرة جرال بسنة كويمد ماشان صومالي ما شرعي أكثر واقرت مرة بالمركة شرعي بعدنا كنتيك سنة مركة عيار تاسع بالمرين تاسع بالمرين اللي يكسي كبعد ريلاكس عن نقضي وحن نقضي one of the member أو ملكس تلاقوا عايو أو معقولة نوينا نقضي ماشان كوكوري أو كوبسلاوي مركز كبعدي أو حنا هنا معنا قرطورية ده مركز سمينا أيو رول كشرعية ده رول كشرعية ده وحاس عمبرتو أنا أديك أنا improvement أنا إيش كسميه أنا جن وح أمسنا نوح برنا يقول ربو هنا هاي مقالة قيمة كلها تقع مقالة سعته كله مقالة مكقبنا تتكلم حلي هاي قرمات قبنتون تا مليو كل شرعي مي وكل تكوي سبورت وتتكوي عاد بكو حسين كسوي كوي قاعد هيستوري نولو شادي حافظ هذه درسكا مقالة دو أيرتاي اللي ما أقول عليه مليو ويوجين مركو كل بايا ما يوصح وين شكل مش هسكب بالعبانيسا وايا عيارتادii kuugu xiisaha badnayd taas waa tii dagaalkii oo aad ku guulaysid waaya maxamed mar walba waxa weeye arbitrnimadiisii imtixaamaadkii uu soo galay waxaana maxamed waa wax isaga iskiisa hobbi uu ka dhigtay soomaga maxamed oo su'aal ka baxsan interviewgeena ku weydiinayaa ka waran caruur Soomaali ah maxaa lagu abuuri karaa in arbitrayaal waddanka kan hal nin yar dhalinyaro abaa jira wuxuu tagan yahay Wembley uu tagan yahay arbitr uu noqday Kayton ma yar kala jira Yaasir la dhaho Kayton waa jira isagana ciyaar badan isagana Chelsea wax badan alamiinto tababar uu soo isku dayay laakiin ilaa hadda waa ordaya ilaa hadda waa ordaya xabar buu holiday u aaday uu noo soo noqon doonaa isagana waa wareysan doonaa marka waxaan ku weydiinayaa miyaanan la samayn karin caruur hobbigooda because looga dhigo arbiter maxay wax sahlan baa waxaa jirto gabadhan oo yarta waa jirta waalidaan wahay waa ku bushkareeyey meel fiican ay taagan tahay is never late
knowledge-keedana aad u fiican markay sport management ay baratay afeeda wax weyn ay ugu fadhisaa gabar waxaa jiri jirtay UEFA level 3 ka qaadatay footballku waa ka baxday khatra la yiraahdo khatra cigaal ingiriiska London ay degan tahay waagii oo ingiriiska ay rabeen World Cup in inta lagu qabto David Beckham iyo ay raacday la radaa waas indu waxay degan tahay Stonebridge agteeda degan tahay wayadana waa heli khatra cigaal way ka baxday hadda wadaaday noqotay caruur ay dhashay ما شاء الله level 3 oo UEFA qof haysto boqorada awurtiisa xataa aniga oo raac habeen kala siin ما شاء الله maxamed wuxuu noo sheegayaa gabar Soomaali ah oo xaafada Wembley area degan oo level 3 gaartay ma jirto gabar level 3 gaartay gabadha yar oo hadda soo baxayso wuxuu dhahay knowledge-keeda aad iyo aad buu fiican yahay late maahan waa gabar yar weeye marmar anagu interviewgeeda waa dhageysanay go'aanka waxa tiraad marmar baa problem in lagu sameeyo yelowga ku dagaalama iyo calaamadaha casaanka ku dagaalama marka si kale awood ah u leedahay ma jirto gabar madow ah gabar waxa tahay muslim ah oo jili khimaar ku arbitra ku sameynaysa marka dadka u aysidna iyagoo ogol Jawahir Roble JJ baa la dhahaa Jawahir Roble waad ka heli kartaa YouTube-ka hadaa ku qortaan bal sidii u ordayso ciyaaro ay haysato aniga waan taawaday first muslim oo khimaar wata oo first black oo arbitra haya marka maxamed waxaan ku weydiinayaa da'dee ayaa arbitranimada lagu bilaabay wala waxay ku xiran tahay qofka rajada oo asaga uu haduu jecel yahay wuxuu ku bilaabi karaa ilaa 14 all right waa sida kubadda kale waa sida footballka kale okay markaas school buu tagayaa school tagaysa oo theory lagu barto sharciyada ruleska ma adko waa 17 way ruleska wala xifdin karaa waliya lagu xifdin karaa okay ka bacdi practice schoolkaas ma qasho soconaya laba weekend buu soconaya waa karti ka bacdi course kala lagu siinayaa oo iyadana islaax sharcigi leeyahay laakiin oo ka balbalaarsan okay kaasina ma ku soconaya maya every season markuu dhamaado June July waxa laga bedelaa waa nognahay marka mar walba koorsooyinka markuu xirmato waa ina hadana buugaag cusub soo qaata update waa lagu siinaa mar walba waa ina update noqota marka ciyaal meesha tan wadankan waa deganahay maxamed generation to generation baa hadda maraynaa haddaynan gaarin 3 generation marka dawladii waa la dhaxgalnay footballadii hadda ciyaalkeenii baseskoodii way soo galeen waxbarashadii meeshii laga rabay ma la imaanin waxaan loo imaanin macnaha inaan lahayn saaxiibnahay waxaan loo imaanin footballka 3 leeyahay ma fahanteen promotion oo la abuurayo professional inuu noqdo oo kartay iyo amateur saddexdaas marka anaga waxa waaye waa abuureynaa laakiin markii professional la gaaro cunugii qof wadi kara ma lahan amateur oo noqonaya cunugii shalay yaray oo 15 jiray oo talentiga ahay meel la geeyo oo professional ku noqdo ma jirto cunugii oo weynaaday oo 20 xoogaa dhaafay oo ama shiisha cabayo ama balaartay hal arkaya fit ma jiro 25 sano 24 sano oo fit ah oo orday ma jiro amatorial waa hada fiiri Sweden laga yimid Wembley lagu ciyaaray waa joognay okay hal qof oo laga qaato ma lahan ma jiro oo aadi karo waxa waaye amatorial way 3 sano kala day sii socdaan dariishaday ka way ka waqti waxa naga maqan knowledge-ka dadkii gaarsiin lahay heerka kale oo gaalada ama wadanka dhaxgali lahay ma qabno sida dhakhaatiirta aan top ugu noqonay sida hadda dawladaha hoose waa soo galay iyo dhan sportski misleedahay waxa ka seexday nimankii meesha yimaado qaybaha sportska ma seexanin waxa loo baahan yahay adiga horta inaad course samaysid oo iskool aad gashid nolosha qofka uu ku tartamayo ma fahanteen koorsooyin jira afeeda management qofka waa inuu isku mashquuliyaa course inuu qaato hadaa qaadanin qofkan goormay gudbinay
ma qabno hal nin oo agenti ah oo ciyaalkeena talentiga gudbin karo oo dhexgelin karo akademiyaasha waaweyn anaka isku noqonayno liiga aan dhilno maanta ninaan weydiiyey wuxuu yiri liiga dhexdeena liiga dhilno may anaka inaan integration samayno waayo oo bulshada aan dhex galno waddanka aan joogo waxaa ka mid a for example hadda reer Wembley waa dadaalaan laakiin dadaalkoodii haddana meel ma gaarsiisnaa iyagii unbaa isku meeraystaa waxaa la rabaa liigyada xaafadda ka dhacaya iyagoo tiim ah asa tiim ah inay u galaan problemka waxaan taqaanaa ma ahan ayaka waxa dad ciyaartooy oo badan dad oo knowledge oo sport leh problemka hal qof oo maqabno oo member ah oo afeeda noogu jiro waa kastay ma fahad ama afeeda wax ka soo dhameyn karo ma qabno wixii baahidii meesha ay ka jirtay qof gaarsiisanaa markaasaana wadankii furii baa heshay markaa tib badan baa la helayaa MP-ga qofka MP-ga intuu aadaa kor buu aaday xafiiska kor oo aaday ma fahantay Brent Council oo ka qayb galaya Lucian Council oo aadaya ma fahantay qofka MP-ga qofka micnaa fahmino consularka ah meelo tagaa anaga aaway qof intoo boorso qaato afeeda la soo sheekaysto oo wax ka soo qaado oo soo noqdo ما فهمتي أنا مركا أربيتراي أفيدا هذا يا وصح ما فهمتي أوكي نيك أربيترا دو أفيدا هذا أو حكسو قاضي كرو أنا كحبانا كورسوين أو كروس بندنسي أو فوتبول أو ودن كاكدا عايو قف قعنت كو قبصدو وايا داوديال maanta barnaamijkeeni maxamed intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa maxamed aad iyo aad baa u mahadsantahay interviewyadeennana waa noo soconayaan marka qayb ayaan u soo gudbinaynaa maxamed wuxuu nooga sheekayn doonaa caqabadaha footballka ciyaalka yurubiyaanka ku dhashay ee jooga maxay uga qayb qaadan la'yihiin because waxa ka mid ah ciyaalkii iyagoo iskoolka dhiganaya ciyaalkii iskoolka la dhiganaya inay ka soo baxaan iyaguna horumar ka gaaraan annagiina marka caqabadaha carabku ku dhuftay marka insha Allah nala socda maxamed maalinba waxaynu qodob baynu ka soo qaadanaynaa iyo caqabadaha noo taagan ciyaalkeena inaan arbitrayaal ka dhigno inaan horumar ka samayno in coach football professional inuu noo sameeyo tababaranimada meesha laga gelayo maxaasoo dhan maxamed waa ka faa'iidaysan doonaa wuxuu kaloo noo tilmaami doonaa dadkii hore oo lajamada ah oo waddanka ku nool iyo qaar dibadaha ku nool kullina isagaa nagu xiri doona interview baan kasoo qaadi doonaa maxamed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa